aadan maxamed cumar oo ku magac dheer jeex waa wiil dhalinyaro ah oo maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay gudaha magaalada Boorama waxaana uu dhaawac ka soo gaaray dhinaca dhabarka waxaana maalmihii ugu dambeeyay soo tarayay deeqaha kala duwan ee soo gaarsiinayay xiriin oo ku dhaqan dalka dibadiisa wariye Nuux Cumar Kadiye oo kamid ah wariyaasha ka hawlgala gobolka Awdal oo isagoo isku xiqaamay deeqdaas la soo gaarsiinayay inuu gaarsiiyo aadan maxamed cumar ayaa waxa uu maanta gaarsiiyay lacag qadarkeedu dhan tahay $100 oo soo diray mid kamid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Awdal ee ku dhaqan dalka Switzerland wariye Nuux Kadiye guddoonsiinaya lacagtaasi ayaa waxa uu yiri maanta waxaan u tageynaa walaalkeen Boorama ku xanuunsanaa aadan maxamed cumar oo ku magac dheer jeex maanta waxaan u geenaynaa lacag dhan $100 Mareykanka taasi oo ka timiday walaal muxsin oo ku dhaqan dalkaasi Switzerland kullay guriga muu degan yahay walaalkeen xaaladiisuna aad u shaqa adag tahay wuxuu u baahan yahay in loo diro dhakhtar dibadeed kullay in bani'aadamku wax isu qabto waa wax wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinka dhexdiina isu gargaarana waa idin gargaaraya marka walaalayaal walaalkeen aad buu xanuunsanayaa kullay xaaladiisuna aad buu adag tahay isaga noo warrami doona waddanka gudihiisa waxba loogama qaban karo xaaladiisu aad buu adag tahay lugihiisuna kama kici karo marka walaalayaal idinkoo si naxariisa oo bani'aadantinimo ku jirta ugu naxariisana walaalkeen u soo naxariista oo wixii aad haysaan ugu soo tabaruca waxaan hadda guddoonsiinaynaa $100 oo ka timiday dalkaasi Switzerland wiil walaalkeen muxsin oo reer Boorama ah ayaa soo diray aadan oo $100 naga guddoon wiilkaana ka guddoon kuna ducee walaal waan guddoomay ilaahay halku ka soo saaray uu buuxiyo waan ka guddoomay walaalkayga reer Boorama waan ka guddoomay $100 halku ka soo saaray ilaahay wax qayb qaba ugu bedelo abnigiisana ilaahay ha u ilaaliyo ولا نشكور والله إلهي ما هدي وأنا والله إلهي فوق ديابه ونعمه والحمد لله وياه مرقا دبافان قبا waxaan doonayaa in lugahaas way baqtisan nabur xakamaan ku leeyahay dabarka waan ka jabay marka waxaan doonayaa caalamkan in adduunyada loo maxamed u faafisaan dibtaydaasi oo maxamed maxamed haddii hay tahay iyo haddii dawladda iyo haddii kala wax intii ay maxamed ka naxaysa ee dhibaatada ka naxaysa ummadda maxamed waxaan ka doonayaa in dhakhtar la geeyo dibad aday tahay iyo daltaada dhakhtar dibad waliba dhakhtar bukan ma jiray xaaladaada bal hadda ka war sidee tahay adigu xaaladeedu waan iska dhib qabaa qarqarka hoose kama kacayo logayma dhaqaaqayaan afar bilood bishii afraad baa iimka ii socoto iyo bila ay dhamaanaysa marka waa dhib aadan qaba ummadda nabi maxamed meel kasta joogaanba waxaan ka rajaynayaa aan ka codsanayaa inay dhibtaasi iga soo caawiyaan Mustafa Caraale magaalada Boorama